soo dhawaada asxaabta madaxweynayaasha caalamku waxay leeyihiin dad muxaafad ah oo ku raacsan siyaasadooda iyo fikirkooda laakiin ma jiro qof boqolkiiba boqol la taageersan yahay waxaa jira sidoo kale dad ku mucaarad ah maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah mucaaradka madaxweynayaasha kuwaas oo isku dayay inay dilaan ama ay waxyeeleeyaan madaxweynayaasha intaynaan guda gelin subscribe saar channelka ogaal cusub una sii share gala asxaabtaada George W. Bush mid ka mid ah wareysyadii uu bixiyay sanadkii 2008 ayaa waxa uu ku cabiray dareenkiisa ka dhanka go'aanka laga gaaray dagaalka Iraq hadalkaas oo kiciyay dareemaha mid ka mid ah saxafiyiintii joogtay goobta kaas oo ka soo jeeday wadanka Iraq wuxuuna dareemay inuu hoos u dhigay wadankiisa waxaana lagu magacaabayay saxafiga Al-Yazidi wuxuuna ku tuuray labadiisii kabood laakiin uma suurtagelin inay ku dhacaan kabihii madaxweynaha waana la xidhay ninkii waxaana lagu xukumay 3 sano oo xadhiga laakiin muu dhamaysan xabsigiisii oo waxa la sii daayay markii uu xidhnaa 6 bilood wuxuuna ku noqday wadanka Lubnaan si uu xaggaas ugu noolaado waxaanu ka mid noqday geesiyaasha Iraq maxaa yeelay ra'yigii dadka ayuu ku cabiray ficil Donald Trump intii lagu guda jiray diyaargarowgii musharaxnimo ee uu isugu soo sharaxay Donald Trump madaxweynenimada ayaa wuxuu u qabtay khudbad shacabka oo dhan intii uu ku guda jiray khudbadiisa ayaa waxa uu suurto gashay mid ka mid ah shacabkii inuu ka soo dulboodo biraha dadka haya laakiin waa la qabtay ninkii intaanu gaarin madaxweynihiina waxa lagu qasbay inuu ka tago meesha si loo ilaaliyo amnigiisa Francois Hollande wuxuu ahaa madaxweynaha Faransiiska laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa 2017 markii ay dhacaysay dhacdadani wuxuu ku jiray xaaladda musharaxnimo ee kursiga madaxweyne laakiin ma ay awoodin ilaaladiisu inay si fiican u ilaaliyaan iyadoo ay soo dhaqaaqday gabadh ka mid ahayd dadkii dhageysanayay khudbadiisa kuna shubtay madaxweynihii bur ama daqiiq intaas kadib ayay awoodeen ilaaladii inay qabtaan gabadhii waxayna ku xidheen qolka dharka si loo xaqiijiyo waxay waday gabadhaasi iyo si loo marsiiyo sharciga John Prescott wuxuu ahaa nin lagu yaqaano inuu isku dayo mar walba inuu tuso shacabka jacayl iyo inuu ku maro wadooyinka isagoo bilaa ilaalo ah maalmaha ka mid ah ayuu u soo baxay suuqa isagoo ayna la socon ilaalo adag laakiin isagoo marayo wada la jaar ahayd gurigiisa ayaa wuxuu ku kadsoomay nin taagan wadada dhinaceeda oo ku soo tuuraya ukun arrinkaas oo ka cadhaysiiyay Prescott laakiin waxa la yaab leh in arrinkii isku bedelay dagaal wuxuuna bilaabay mid walba inuu la dagaalamo midka kale waxaana si dhaqso ah ku soo gaaray goobtii booliskii iyadoo xaggii lagu xidhay ninkii Vitaly Sulsky siyaasigii Ukrainiyaanka ahaa wuxuu kala kulmay siyaasigani mucaaradad aad u weyn shacabka Ukrainiya fikirkiisa oo ayna dadka badankoodu aqbalin awgeed maalin isagoo ka soo baxay xafiiskiisa waxa ku sugayay albaabka xafiiskiisa dad badan oo mucaaradkiisa ahaa manay la socon madaxweynaha ilaalo badan waxayna isku dayeen dadkii inay waxyeeleeyaan iyagoo ku dhexriday mid ka mid ah sanduuqyada qashinka waxayna bilaabeen inay duleystaan kuna dhex garaacaan sanduuqa laakiin waqti yar kadib ilaaladii ayaa awooday inay ka dhex saaraan dadka isagoo ayna soo gaarin dhibaato aad u weyn Ahmed Degan isagoo ka jeedinaya kelmad meel ayaa waxa ka soo dhex baxay dadkii ka soo qayb galayaasha ahaa nin xoog weyn oo ay gacantiisa ku jirto baaskoolad isagoo ku jeediyay baaskooladii madaxa Ahmed Degan dadkii oo dhan waxay dareemeen inay soo dhamaatay noloshii siyaasigu laakiin wax lala yaabo waxa noqotay in isku daygaasi uu noqday mid fashilmay wuxuuna isku dayay ninkii mar labaad inuu cabeeyo baaskooladii laakiin umay suurtagelin oo waxa ka soo buuxsamay goobtii ilaalo iyo xogaga amniga waxaana suurtagal noqotay in la qabto ninkaasi xaggaasna lagu fashiliyo isku daygaasi dilka ah intaasi ayaan idiin soo gudbinay maanta daawadayaal haddii aad ku cusub tahay channelka ogaal cusub subscribe saar una sii share gala asxaabtaada waad mahadsan tahay